waayahay habeen wanaagsan halka aad naga dhigaysanaysaan waa Samadoon Radio qaybtiisa telefishinka Samadoon TV habeen walbo xada ayaanu hawada soo galnaa khiyaartana daawanaysa iyo kuwa dhigaysanayo barnaamijkii fankiga suugaanta qaybtiisa caawa ayaa nasiib wanaag waxa aanu ku soo qaadanay waraysi khadka telefoonka kaasoo aanu la yeelanay fanaanada yaro Soomaaliyeed Nimco Cabdi Nimco Dareeno iyadoo waqtigan xaadirka ku sugan caasimada dalka Ingiriiska ee London Nimco marka ugu horeysa waxa aan ku leeyahay ku soo dhow telefishinka Samadoon iyo radio-giisa waan dhawahay mar labaad waanan idin joogaa waa kanaan salaamaya dhamaantiin waayahay Nimco fanka Soomaalida marka la eego waxa aad ku soo biirtay gooraan sida u sii fogeen waxa ahayd baan filayaa sida aan ka akhriyay jaraajada qoran iyo telefishinada hore u daawaday 1996 Nimco marka la eego magacaaga muuqaaga actionkaaga iyo fankaaga aad uga muuqdaa aaladaha la iska daawaday telefishinada internetka marka aan iraahdo iyo waliba CD-yada dhageysigooda aad buu uga muuqdaa marka ma ku oran karaa ma jirtaa cid markii ugu horeysay fanka aad soo galeysay runtii ka dhiiri geliso marka aragtay codkaaga aadka u macaan iyo muuqaalkaaga oo ku tiri marka ku soo biir fanka Soomaaliyeed aad baad ugu wanaagsan lahayd wala horta musician weyn baan la joogay Sheekh Cabdi oo haddana Denmark ku sugan oo gitaristihi Soomaaliyeed waa beri ahaan jiray kabacdi waxaan lahayn koox la yiraahdo Jubbaland oo hadda iyaguna adduunka dacalooda kala jooga marka waa la fara badnaa berigaas xagga aan joognay Helsinki Nimco fankaagu waa mid aad looga yaqaano caalamka haddii aan ku weydiiyo su'aashan sidan u dhigmaysaa goormaad fanka Soomaalida aad ku soo biirtay Nimco abo horta marka hore ani fanka waxaan ka bilaabay Scandinavia oo ah meeshan ku soo koray oo jecelahay special magaalada Helsinki wadanka Finland waxaana bilaabay markuu sanadku ahaa 96 ilaa haddana sidii baan ugu jiraa Nimco fanaanimadaadu waxa ay noqotay aan ogsoonahay caalamka afartiisa cirif Soomaalida degan inta milyan ay yihiin inta fankaaga aad ka waxaysaysa waxay arkeen oo ishoodu qabatay inaad qof cajiib ah tahay adigu aad u soo baxday adun ba taas sheegi karaa aad iyo aad anaga og sheegaynana Nimco fanka Soomaalida dadka ku soo biiray dhalintii yar sida aan ogsoonahay heesooda aan dhageysano waxay u badan yihiin heesa marka fanaaniin hore oo Soomaali ay qaadeen dadku waxay sheegaan marka Nimco waayadii dambe ama sanadadii ugu dambeeyay waxa ay noqotay heesaad adigu leedahay inaad doorato aan kugu naqaano heesa kala duwan oo marka talantaali oo dad la qaado ama kuwa adiga gooni ku oo shakhsiyad u qaado adigu lagu alifo muusiga lagu sameeyay waxaa jira cid ka caawisay oo kugula talisay oo ku tiri marka waxa aad u wanaagsanaan lahayd in qofka marka uu fanka ku soo biiro heesa uu leeyahay isagu uu sameesto marka uu wata hawshiisa Nimco maya aboosideeda waxa fiican markaad fanka horta fanka marka qof kasta uu soo galay hees qofku leeyahay inuu ku bilaabo qasab maaha hees kale fanaan aad jecesha ama fanaan ka horeeyo weyn u leeyahay baa lagu bilaabaa laakiin mar waxa fiican ba hadad wixii soo gashid ba fanki soo gashid ba inaad dadkii qadiyado kala nooca jira inaad heesaad adigu leedahay dadkii shacabka u soo bandhigtid
ood heesahaaga bartid ood heesa cusub adiga leedahay ood ku dagaaltay kartid aad keensatid fiican annagu waxaan la jaan qaadnay heestii dareen صح nimco الله يعزك ويدي بالنمعة هاستا اريادا قرحون له عدة سميسي iyo muusigeeda heestareen waxaa sameeyey abwaanka Mustafa Kiko laxankana Mustafa Kiko sameeyey waxaanu ku sameeyey magaalada Helsinki ee wadanka Finland axduna waa aniga ana axad ku darsaday qadadooyga ma horay qamoyadii cashaqaage qacdiyan kula kulmayba maatina lay qandadu igama horeyn qamoyadii caashaqe waa eriye qurux badan صح miyaa ku weydiin karaa nimca eriyada mu'alifka iyo muusiga cidda samaysay ka dambeysay quruxdaasi ereyada waxaa ii sameeyey abwaan weyn oo jooga magaalada Birmingham ee wadanka Ingiriiska muusigana waxaa ii tumay musishinka caanka ah Axmed Saalax Qaasim nimco heesaha aad qaado in badan baan runtii caalamka laga dhageystay anna waa dhageystay xasan ahaan heesahaagu waxay runtii aad cajiib ugu yihiin jacaylka ku badan jacaylkana aad bay dadku u jecel yihiin waana xiiseynaa heesaha jacaylku aad bay u qurux badan yihiin laakiin nimco haddii aan ku weydiiyo hees waxaa jirtay fanaan da'yar aad la qaaday waxaan filayaa hees wadani inay tahay waxa aad si talantaali ah aad si wada jira ugu wada qaadaan fanaandiini heesta magaceeda waxaa la yidhaahdaa ninkii duminaya xamarow xaajada kursiga ka weyn الله يعزك نمع ميان كويدين كنا مركا عدة إريادا قروح بدن اللفتي هي موسيقى عدة راعسي heestaas waa hees qadiyada ku saabsan Soomaaliya oo ka hadlaysa yani qof kasta oo yani dadkii dhibaato u geysanaya oo kursiga dadkan ku dagaalamaya ah waa lagala hadlaya waa loo sheegaya waxa leeyahay yani dadkan aad dilaysaan iyo baabi'inaysaan iyo wadankan quruxda badan ee duminaysaan ma aha yani kursi intaad ku fadhiisataan oo intaad xisaab qaadataan aad ka kacaysaan dadkeena sidan u dhaama xaajada kursiga ka weyn kaaraha bulshada ka daa yani qorigan iyo xabadan dadka ka daaya nimco fankaagu waa mid sii korayay markaan idhaahdo heesaha kelida aad u qaado iyo kuwa lamaanaha waxa aad moodaa inay isla eg yihiin bal nala daawada heestan aad la qaado qoomaal inuu samirku roon yaho yahay soor la quuto sabanada adkaada aqliga saxaya saygeegi rabbiyo subanow cabdiyo saygeegi rabbiyo nimco waa hees aad u qurxoon runtii si talantaaliya codkaaga iyo qoomaalba cidda aliftay muusigeeda iyo eriyada cidda lahayd nimco heestaas waxaa alifay cabdiraxmaan abees wiil la yiraahdo abwaan dhalinyaro ah oo reer ingiriiska ah muusigana waxaa tumay maxamed karaama laxankana waxaa saaray maxamed axmed qoomaal nimco marka laga hadlo nimco dareen fankeeda soomaalida afarta cirif ee caalamkan ku nool inta dhageysata khaasatan muusigaagu aadka u jecel markii la yidhaahdo nimco dareen waxay yidhahdaan action nimco ma jirta cid markaa adigu kaa caawisay fanka markaad soo gashay masraxiyadan ama aan idhaahday masraxiyeedkan muuqaalkan ciyaartan habkan goonida adigu u leedahay cid kaa caawisay miyaa jirtay oo markaa ku tiri sidan bay ku wanaagsan tahay maya abo waxa weeyaan kolley wax ay dadkayga fankayga jecel ay arki karaan qofkana waxaa fiican wax kasta natural inuu uga yimaado waa waxa kolley dadka ay arki karaan because anu ma arki karo laakiin waa wax dhowr wareysi oo hadda kahor markaan maraykanka sanadkan tegay waa la iweydiiyey marka anu ma arki karo laakiin waxaan umalaynaya natural ahaan inay tahay nimco haddii aan idhaahdo aan sida tan u dhigo su-aashaydan waxaanu ognahay aanu aqoonsannahay aanu akrinay daawanay fankaaga marka la eego concerta ama xafladaha aad tagto booqashada dalalka aad ku tagto waxaan ognahay inaad tagtay qaaradda america aasiya iyo yurub waxaan rabay inaan ku weydiiyo markaa ma laga yaabaa mustaqbalka dhow
in qaaradda africa qaybaheeda kala duwan aad gaarsiiso muusigaaga iyo caweysyadaada iyo fankaaga iyo xafladahaaga weliba insha allah hadda markaan norway idinku imaado bacdal norway habeenka sanadka cusub habeenka 1 bishan waxaan tegayaa Swiss-ka magaalada Zurich kabacdi markaan London kusoo noqdaa insha allah rajeynaya tour Africa inaan sameeyo nimco barnaamijkan fanka iyo suugaanta caawa aad nagala qayb qaadatay khadkiisa telefoonka maadaama aad kusoo socoto dalka Norway dadkiisa Soomaaliyeed degan farxad weyn ay noo tahay inaad nagala qayb qaadato habeenka sanadka uu isroogay 2011 dad badan ay runtii ka daawanayaan telefishinka qaybtiisa Samadoon dhageysigana aanu hawada ku jirno ay dhageysanayaan ummad Soomaaliyeed aad u fara badan qaybta radio-ga ma jirta salaamo ama fariimo ballanqaadyo aad noo sheegayso markaa ha horta marka ugu horeysa dhamaan reer Scandinavia oo dhan waan salaamayaa special reer Norway aad baan u salaamayaa Norwayna waa meel aan jecelahay fankayga aad looga xiiseeyo waxaan xasuustaa hadda ka hor aniga Maxamed Salmaan Tubeec baan nimidnay sanadka markuu ahaa 99kii aad baan looga soo dhaweeyay markastoo nimaadana aad baa la iiga soo dhaweeyaa reer Norway waxaan leeyahay wacdaro badan bad habeenka Happy New Year insha Allah la kulmaysaan so I know your goobta aad baan idin jecelahay waan idin aad baan ku jecelnahay gabagabadii barnaamijka nimca dalka Norway dadka degan waa mid aad ku soo food leedahay sida aad sheegtay waxa aan ku leeyahay anigoo ku hadlaya magaca bulshada weynta Soomaaliyeed kuwa fankaaga aad ka waxayseeya in ay ballan qaadayaan inay kugu dhigi doonaan red carpets airport-kana ay kugu sugi doonaan aadna waad u mahadsan tahay aad baa u mahadsantihiin abo dhammaantiin waan idin salaamayaa waan insha allah waan idin imanayaa ana can't wait intaan idin imanayo balan baan uga qaaday habeenkaas reer Norway inay si fiican u wada ruxmaan we love you too habeen wanaagsan aadna waad u mahadsan tahay nimco cabdi nimco dareen habeen wanaagsan abo taasi waxay ahayd nimco cabdi nimco dareen oo khadka telefoonka kaga wareysanayay iyadoo ku sugan caasimadda dalka Ingiriiska ee London nimco aad baad u mahadsan tahay mar kale halka aad ka dhageysanaysay ama aad naga daawanaysaan akhyaarta hawada naga dhageysanaysay waa telefishinka Samadoon ama radio-ga aad si toos ah nooga maqashaan habeen walba xadda 9 habeenimo ilaa iyo saqda dhaxinta aanu kulantideena dambe aanu hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa anigoo xasana farsamayaqaanka laanta afka Soomaaliga ee Samadoon radio iyo TV Sakariye Eno iyo Haatif cameramanka waxaanu idin leenahay nabadgelyo iyo ismaqal iyo aragti dambe oo xiiso leh Thank you.